gudoomiye aqalka sare sidoo ka dhawaajiyay wali waxa taagan khilaafkii labada golaha shacabka golaha aqalka hoose iyo aqalka sare taas waxay u muuqataa in gudoonka golaha shacabka wali ka warwareegaya in xal laga gaaro labada gole sababtoo ah waxa noo taalo oo na sugaysa mas'uuliyad weyn oo ah in sharciyada wadanka ay qayb ka tahay in la fuliyo gudoomiyaha aqalka sare waxa uu qoray guddi oo u xisaaray arintan aqalka sare iyo golaha shacabka in xal laga gaaro wuxuu u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wali qaybtii kale ee golaha shacabka wax dhaqdhaqaaq may muujin taasna waxaad moodaysaa in ay rabaan inay sii huriyaan khilaafka jira ee labada gole annaga haddaan aqalka sare waxa naga saarantaa mas'uuliyad badan arrimaha wadanka walina waxaan leenahay waxa loo diyaar yahay in xal laga gaaro hadduu alla idmo gudoonka golaha shacabka khaasatan waxa mas'uuliyad ka saaran tahay in xalka gaarista arintan ay go'aan weyn ka qaataan aysan noqon arinta labada gole wax xifaltan ama isku dheerin u eg in lagu sameeyo marka waxaan leenahay mas'uuliyadda saaran yeysan gabin dalka shaqooyinka u yaalan yeysan ka dhigin wax gabaabsiya ama istaagtaag ah si sharciyada wadanka yaalo aan uga gulgaarno si aan guul uga gaarno xeerarka dastuurka dhameystirkiisa iyo arrimaha doorashooyinkeena yaalo inuu dhameeyo gudoonka golaha aqalka sare iyo golaha aqalka sare waxa ka go'an in xal laga gaaro guddigana waan magacawnay muddo laga jooga 2 isbuuc waxaan idinkaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina aad